munaasabad lagu maamuusayay markii gobolada koonfurta ay xoriyadoodu ka qaateen gumeystihii Talyaaniga isla markaana ku aastaysan Israaci koonfur iyo waqooyi ayaa waxa lagu qabtay gobolka Sangaalan ee wadankan Switzerland. Munaasabadan ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin iyo shacab kala duwan oo ka kala yimid guud ahaan wadankan Switzerland iyo dalka Liechtenstein. waxaan mahad khaas ah u soo jeedinayaa walaalkeen oo safar dheer nooga yimid oo safaaradda oo safar dheer halkaas nooga yimid wax Cabduqaadir Barqadle waxaan ku leeyahay walaalkay soo dhawaaw iyo walaalaha kale gobolada kale nagala yimid iyo telefishinka qaranka aad aan ugu mahad celinayaa oo sharaftaan iyo maamuuskan iska leh xafladda kooda luuleena waa noo furan tahay waa maalin xusuus mudan meel kasta oo shanta qaaradood adduunka ka mid ah oo qof Soomaali jooga maanta waxa weeyaan qalbigiisa ku taala ku xusan iyo ku xus isla weeyaan marka mudanayaal iyo mar way mahadsantihiin qof walba waa inay fahamtaa muhiimadda aan isugu nimid meeshaan maxay tahay qofka waa inuu ogaadaa muhiimadda waxay tahay in aan xusno maalinta farxadda leh ee kowda luuliyo marka muhiimaddu waxay tahay in farxad aan ku imaano aan hambaliyeyno kadibna anagoo faraxsan oo aan ciidnay haddana guryaheena inaan aadno marka min fadlakum cafis iyo farxad ku dadaala insha allah marka السلام عليكم صومالي وإنمان ومدن مالح وهين وان سلام وصغر يا كبير نصوم سلام يا وحنسى سيدها سؤال وهين مريض كدلقان عرتميو كانت الله عفتا قري عقت مريد دويني laga celi markii xamar cudud baana la hordhigay ceelkii warshiiqiyo dhanka deexda uga carar culuma galay tidhi iska celiya gaalada ka caraaba goortaas. dhanka kalena xogayaha koowaad ee safaaradda Soomaaliyeed ee wadanka Switzerland Cabduqaadir Maxamed Xuseen Barqadle oo dhankiisa madasha ka hadlay ayaa waxa uu ka sheekeeyay sida shacabka Soomaaliyeed ay ugu weyn tahay maalintan. caawa oo kooda luuliyo waa habeen taariikhi ah waa maalin aan anagoo Soomaali aan ay tahay maalintii xornimada koodii luuliyo 1960kii xornimada aan ka qaadanay wadamada Faransiiska iyo Ingiriiska iyo Talyaaniga. kooda luuliyo waa habeen taariikhi ah 26 juun waxaa xornimada qaatay gobolada waqooyi 5 maalin kadibna waxaa xornimada qaadatay gobolada koonfureed ay ka qaateen gumeystihii Talyaaniga. marraba taariikhda inaan dib ugu laabto dad badan oo iga waaweyn oo iga qabiirsan oo iga waay aragtana hore u sheegay dardaarankii ugu dambeeyay waxaan leeyahay hooyooyinka Soomaaliyeed iyo aabooyin Soomaaliyeed oo degan dalka Switzerland iyo dhammaan qurbahaba waxaan kula dardaarmayaa in caruurteena aan barno qiimaha ay leedahay kooda luuliyo. Cabdiqani Cali Dalmar warbaahinta qaranka gobolka Sangaalan wadanka Switzerland.